xilli guddiga fatahaadda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay ka wadaan dadaalo lagu hortagayo fatahaadda magaalada beledweyne ayaa dhanka kalena guddiga waxaa lagu eedeeyay barakicin dadweyne barakicintaasi oo ah in daadad ka soo baxay keliga waraabaale ay ku barakiceen ilaa iyo 3,000 oo qoys oo degan xaafadda Huludaag laanta Hegan odayaal iyo waxgarad oo goobta biyaha ay ka soo baxeen kula hadlay warbaahinta ayaa guddiga waxa ay ku eedeeyeen barakicin dadweyne waxayna sheegeen in shaqada ay wadaan aysan ahayn mid cadaalad ah biyahan sabab u soo leexay dahabshil waxay u adeegsatay dad aqoon aan lahayn xaafadda lacag la soo siiyay u adeegsatay dadkaas magacooda waa la yaqaanaa timilkooda la yaqaanaa ka hor dhici ma hayno ayaaba biri iyo dabo haddana in lacag la siiyaa la dhihi doonaa hadle ee warkaan beentay ayaaba la dhihi doonaa markaasay murdax soo dhihi doonaan hala fiirsado waqtigaas biyahan saan u socdo biibaxa ma aha fatahaad ma aha kiliga meeshi roob ma aha kiliga meeshiis webiga ka galaya baalla la gelay godaa loo qoday hoosaa kiliga loo dhigay Soomaalidu waxay ku maamaahdaa biyo meel godanay aadaan meeshii godnay ay soo aadeen waxaasaan dadkan u barakici fidnadan dhigi maatadan barakici naf iyo maalba lagu waay dahabshil cirka mado oo haay wuu biibaxa oo gobolka Hiiraan saameeyay balweyne saameeyay ma ahan waa xaafad oo si qaas ah biyaha loogu soo leexay waxa ku soo leexay dadka hore loo taabtay iyo shirkadaha hore loo taabtay ku soo leexay wax cadeyn ah waay marqaati ma doonto waay waxan ahal loo ahayn hadii dhax gasha wax badan baa ku halaaba wax badan yaa ku halaaba Soomaaliya hore waxa u tiri nima tali jirna daas taliya nima tali jirna taga dad ahalkeed ahayn hawsha hormuud ka noqday waxay u adeegsadeen hore loo sheegay waxan cadeyneynaa oo inta islaamka oo ahalka oo muslimiinta oo gobolka Hiiraan ku nool aan cadeyneynaa hadda saaca la joogo ninka adiga oo barnaamijkan wata oo dahabshil oo meesha u joogo maarayaha ka inuu meel ageegan taagan yahay oo la biyaanka leexina xaafadii biyo ay ku soo baxeen oo laga barakacay oo 5,000 oo qoys ay ka barakacdeen hal maalin oo dhex imaadeen ka hadalnay waxay hayaan wada hayaan waxa hadda dhex joogno u jeedna waay in dad biyo lagu soo furo waayo aqoon xumo badoos loo adeegsado la yiraahdo biyo kaliya la soo leexiyay kaliya bunduqada la soo leexiyay meel dhex marka la keenay afraa laga qaaday webiga waa soo jabay lagu noqday meeshii la keenay markay yimaadeen xaafadda dhexdeeda ay qarax sameeyeen xaafadii caamimeen oo ma yimaadaan hadii dhexaad yihiin oo dhexaad xaafadda u yihiin oo balweyne Ilaahay u yihiin balweyne u yihiin wali ma soo dhaxaysaageen xaafaddan xamad dadkii yimid wasaaraha xabisiisii yimid heer degma yimid oo yar dhaqana yimid iyaga maxaa ka celiyay hadii dhexaad yihiin dhexaad inay ku tusantaad mujadidu warkiisa banaan bay taagiin leeyihiin biyan ka xirina biya iman doona xirina xaafadana waxa xarqatayba xaafadana taaganahay 2,500 oo qoys ka barakacday oo ka baxday oo adeegis airport ay aadeen iku maqan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa cidda ay qosayso iyo hirshadeelle inay xaafadaasi inta dhiman oo hambada ay biyaha ka celiyaan Cabdinuur Cismaan Adan Carays idaacadii TV-ga caalamka SBC magaalada beledweyne